gaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godin godin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godin godin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garis hirtiyey gelin gelin ka daran garya garis hirtiyey gelin gelin ka daran madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed lafta kareen iyo xubno ka mida golihiisa wasiirada iyo baarlamaanka waxa uu maanta booqday isbitaalka magaalada xudur oo lagu dabiibayo ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo abal dagaal ka dhaca ku soo dhaawacmay qaybaha bulshada rayidka ayuu sidoo kale madaxweynuhu kulamo la qaadanaya telefoonka waxaa toos ugu jira wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka bakool ibraahim maxamed khayr ibraahim soo dhowow bakool iga waran iyo kulamada madaxweynaha oo deegaankaas ka wado madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sida aad horey u sheegtay waxa uu u galay habeenkiisii labaad waxaana maanta uu xariga uu ka jaray xarunta suuqa xoolaha ee degmada xudur ee gobolka boqol intaas uu kadib madaxweynaha u gudbay isbitaalka guud ee degmada xudur oo halkaas oo ay yaaleen dhaawacyadii dadkii kusoo dhaawacmay deegaanka abal oo dagaal ay iskaga hor yimaadeen guutada sagaalaad ee qaybta ciidanka hogga dalka soomaaliyeed oo howlgallo beryahan ka waday waxaana madaxweynaha dhiirigelin u sameeyey midna u galan qaaday dadka dhaawacyadii ay kasoo gaareen deegaanadaas waxaa iga warantaa tirada dhaawacyada oo madaxweynuhu maanta booqday iyo xaaladooda waa sidee ma ciidan badan oo dhaawaca ayaa ku jira isbitaalka maadaama dhaawacyada kale intooda badan loo qaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo magaalada caasimada inta meeshaasi ku jirtay 20 ka badan oo dhaawacyo ayaa mid u galan qaaday oo madaxweynaha uu qaabilay maanta waxaana uu sheegay oo dhiirigelin uu sameynayay in uu garbistaag rasmi ah dowladda koonfur galbeed idan haysta uu sheegay in dowladdiisana arrimahaasi ay ka caawin doonto uu sheegay in hadda kadib aysan dhici doonin in dhaawacyada gudaha magaalada xudur lagu dabiibi doono xaaladoodana si dhaba ula socon doono waxaana uu saaray guddi oo ka warqaba dhaawacyada oo ka tirsan militariga soomaaliya iyo golihiisa wasiirada waxaana madaxweynaha uu sheegay in uu ku sugnaan doono xudur ilaa 7 maalimood caawa waxaa galay habeenkiisii labaad waxaana sidoo kale markaas markii uu meeshaasi kasoo tagay oo howshiisa kasoo idlaatay madaxweynaha uu kulamo gooni uu la qaatay Huseenow ulmawdiinka bahda ganacsatada iyo bahda sportska waxaana arrimaha ugu weyn oo laga hadlay ka mid ahayd maadaama magaalada xudur 7 sano iyo 5 bilood go'aan neefsileen ay saartay kooxda shabaab waxaana laga hadlayay ganacsatada sida weyn madaxweynaha ugu soo jeedinayeen kana codsanayeen in wadooyinka soo gala magaalada xudur sidii lagu firin lahaa uu ku dadaalo ibraahim waxaa iga warantaa madaxweynuhu dadka ma wuxuu kala hadlayo keliya go'doonka gobolka ku jira mise waxaa jirta cabashooyin iyo dhibaatooyin kale oo ay la wadaageen waa maxsan tahay Huseenow waxa uu sheegay in madaxweynaha waxa uu sheegay dadka markuu odayaasha uu la kulmayo iyo dadka ganacsatada qeybaheeda kala duwan hadalkii baa la furay kadib madaxweynaha uu sheegay in su'aal kasta la weydiin karo waxaana su'aalaha ugu badan ka imaanayeen dadka ganacsatada oo ay sheegeen in ay dib ku qabaan joogitaanka magaalada xudur iyadoo magaalada ay tahay meel iska go'doonsan oo 7 sano iyo 5 bilood go'doon ku jirta oo aysan jirin waxa socda iyo waxa markaasi ganacsi toos ah waxaana ay ka codsadeen madaxweynaha ugana baageen in deegaankan go'doonka laga saaro madaxweynahana waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyeed ee guutada sagaalaad in ay howlgallada ay laba jibaaraan ka codsaday dowladda federaalka Soomaaliyeed uu sheegay sida wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha hogga in ay dhawaan ay soo gaari doonaan magaalada xudur iyadoo laga arrinsan doono
halka iyo sidii wadadaasi loo furi lahaa. waxaana madaxweynaha sidoo kale codsi u diray xildhibaanada deegaan doorashadooda ay tahay koonfur galbeed dhammaan inay magaalada Xudur isugu imaadaan si looga aransado oo wadadaas go'doonka ku jirta ee magaalada Xudur ee gobolka Boqol. Ibrahim Maxamed Khayr wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka Boqol ayuu kaasiya oo telefoonka toos ugu jiray.